بسم الله نتيجة باريسات أو هردعة تحرى حاشدة تليكو سماها هيئات سردونك إيه نبسوغي دقرنك إلا قري صدح دي بشي كوي تبناد لبكون كوبي اللباتن كونا سابسانيد قعنسين باريسات كإكرام تهليل فارح iyagoo fulinaya amarkii ra'iisul wasaaraha ee 26kii bishii tobnaad 2021 uu ku amray xafiiska xiraalinta iyo hay'adda NISA in ay ka wada shaqeeyaan baarista kiiska Ikraam Tahliil si cadaalad loo gaaro iyagoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo wareejiyay galbaariseed ay horay u sameysay hay'adda NISA sidoo kalena ay ku soo wargelisay in ay diyaar u tahay ku shaqaynta iyo la shaqaynta amarada xafiiska xiraalinta si waafaqsan sharciga dalka guddiga baarista oo ka kooban xirilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa iyo sarkaal ka socda nabad sugidda waxay bilaabeen baaristii iyagoo dib u akhrin ku sameeyey gal dacwadeedkii la soo gudbiyey waxayna go'aamiyeen in dib loo waraysto dhammaan dadkii ay cabashadu ka taalay xafiiska guddigu waxay wareysteen isla markaana cadeymo dib uga wada qoreen cabdiqani maxamed cismaan wadnaqabad iyo asma yuusuf cumar kuwaasoo ka mid ahaa saraakiisha hoose NISA ee cabashada laga soo gudbiyey sidoo kale waxaan cadeymo ka qornay taliya kusimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo cabdulaahi aadan kulane madaxii hore ee shaqada iyo shaqaalaha NISA kuwaasoo mas-uul ka ahaa xilligaas hay'adda NISA guddiga baaristu wuxuu baaris ku tegey xafiiska taliska hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyagoo u kuurgalay goobihii ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV sidoo kale wuxuu booqday xafiiska la socodka kaamirooyinka sidaas darteed guddiga baarista kiiska waxaa u soo caddaatay in hay-adda sirdoonka NISA ay si hufan ula shaqaysay xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baarayay galbaariseedka Ikraam Tahliil Faarax 2 intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad Ikraam Tahliil Faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay'adda NISA 3 guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseedkii ay soo gudbisay hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka NISA oo sheegaya in Ikraam Tahliil Faarax ay afduubteen al-shabaab isla markaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska Ikraam Tahliil Faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanada ay u soo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeyn karo cadaaladda ciddii dhibkaas geysatay wabillahi tawfiiq